الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي لبي اللباتنات هي كتاب كان مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله. وحولي ابن القيم الله سبحانه وتعالى حكم بدن باجرة وابتلاها امتحانات كأنبياء إلهي لمريي qaar jirooyin lagu imtixaamay, qaar la laayay, qaar la dhibay, qaar magaaladoodii laga saaray. wixii la soo mariyey ambiyada ilaahay iyo qisaskeeda qur-aanka aynu ku aragnay iyo addoomaha kale ee mu'miniinta aba waa wax caqligaagu uusan keeni karin, waa wax uusan qofku fahmi karaynin ilaa inuu dareemo moogiyo qofkaas waxaa la marinayay yacni jisri waa deked ama boondo ama jaranjaro oo mixni iyo dhibaato iyo ibtilaa baa la marinayay si uu ugu gudbo u guulaysto. walidaalika hadal waxaa jira imaamu shaafici la weydiiyey yacni qofka in la tamkiiniyo oo waxa uu rabo la siiyo. tamkiin waxaa weeye in wax alla waxaad rabtay hadday dowlad tahay, haddii ay yacni waxaad rabtay in lagu siiyo iyo in la ibtileeyo yaa room baale. saas oo kale wuxuu yidhi imaamu shaafici qofka maba la tamkiin ma helayo ilaa ibtilaa iyo imtixaan uu soo maro. walidaalika waa ambiyada ilaahay kulligood imtixaankaas ayay wada mareen. tuuba liman shagalahu caybuhu can cuyuubi innaas. waxaa ka mid a arrimaha muhimka ah yacni geedda janno iyo wanaag oo dhan waxaa iska leh qofkii ceebtiisu ay ka mashquuliso ceebaha dadka kale. waweylun liman nasiya caybahu watafaraqa licuyuubi innaas. waxaa kaloo hoog iyo halaag uu u sugnaaday qofka halmaamo isagu ceebtiisa laakiin ku mashquula ummadda kale ceebteeda. haadaa min calaamati shaqaawa leeha, waa ayaan darrada calaamada lagu garto wey. adiga in ceebtaadu ayna kuu muuqanin laakiin ummadda kale ceebahoodu ay kuu noqdaan. ayib, walidaalika baa waxaa la yidhaahdaa yacni qofka ogow walinaasi alsunu, ummaddu carabay leedahay. haddaad carabkaaga laga magangeli waayo ceebaha qofkeena tatabucana man tatabaca cawrata akhiih tatabaca allaahu cawratahu. qofkii cawrada dadka kala tatabuco raaraadiya, ceebahooda raaraadiya, maantoo dhan ka shaqeeya, ummadda dabagala, ilaahay baa dabagelaya isagana, allah baa ceebtiisa isagana soo saaraya. ayib, لما كانت خاصة العقل النظر إلى العواقب والغايات يعني كان أعقل الناس أتركهم. dadka waxyaabo badan oo waxaa jira markuu ruuxu fiiriyo si wanaagsanna uu u fiiriyo cawaaqibta umuurta iyo gaayaadka yoolka ay ku dhammaanayso, markuu ka fikiro dadka caqliga lihi waa kuwa ka taga lima tarajaxad mafsadatuhu fi lcaaqiba. yacni mafsadadiisa iyo xumaantiisu ciribta dambe marka la fiiriyo shayga ay rajaxan tahay way iska daynayaan, walow ladda iyo manfaca macaansi yar iyo manfaco hadda yasiiro aba ha lahaadeen. yacni shaygii adduunka markaad joogto waxbaad isleedahay wax wanaaga buu leeyahay, laakiin haddii loosii dhabagalo shaygaa mafsadadiisa ayaa ka badan, qofka caaqilkii wuu iska daynayaa. wax badan baa sharciga alla lagu arkaa labada ismi ee rabbi subxaanahu watacaala, asmaada ilaahay alcasiiz iyo alxakiim oo isla socda. alcasiiz alxakiim labadooda aayaad badan, aayaadka tashriica iyo takwiinka isla socda. taas waxay leeyihin culimmadu waxay ku tusinaysaa ana masdara daalika kullih inuu yahay can xikma, inuu kasoo baxayo ee arrintaas kulligeed oo ah xakiim, wax walba oo sharciga ilaahay ihi can xikmatin baaliga wa cizatin qaahira. yacni xikmad weyn ayay oo xeel dheer bay kasoo baxayaan sharciga ilaahay, cize iyo qaahira yacni awood iyo xikmo. xakiim alladii yadacu kula shayin mawdicahu baa layihi, wax walba meesha ku habboon allah dhiga wey subxaana wa tacaala.
waxaa ka mid a kitaabka waxyaabaha qeybaha dambe ee gebagabada uu ku sheegay adiyara. diyaradu waxaa weye baasaysiga, shirkigay ka mid tahay. fa'liga xasanka ah oo in wax fiican oo fa'li ah, rasuulku sal ly slm magacyada qaar markuu maqlo tafaa'ul fiican buu ka qaadan jiray, wax fiican. waxyaabaha qaarna waaba bedeli jiray. marka diyaradu baasaysigu waxaa weeyaan shirki wuu ka mid yahay. shayaadiinta takhwiifka ay dadka ku tuuraan iyo waswasadooda iyo umuurta noocaasina waxay ugu badan tahay la yidhaahdaa dadka naftooda raacraaciya, oo shayaadiinta iyo waxyaabahay sameeyaan iyo waxyaabaha sii raacraaciya. laakiin qofka ka jooga oo arrimaha noocaas aan israacinin wax badan ma dhibayaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala junuudiisa cadowga qofka waa muuminka ah oo ah kuwa shayaadiin alinsi waljinniba allah inaga badbaadiyo. rabbi subxaanahu wa tacaala. jazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum.